سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa dhammaantiin sidan quruxda badan shacniga badan ee u soo bisheen kulankan iyo martiqaadkan iyo martigelintan intaba waa idinka mahadnaqayaa dhammaantiin. haddii aan ku noqdo waxaan malayaa de hadalka xigmadiisii Mr. Maxamed Cabdilaahi iyo Faadima yidhi waan dhaadhaadayaa un anigu wixii ka hadhay. ujeeddada safarka iyagu waxay ahayd inaanu helnay martiqaadyo kala duwan 3 waddan oo kii ugu dambeeyey yahay Denmark oo aan joogno. waxaan hore u soo maray waddanka Belgium iyo Sweden iyo Denmark aan joogno. waddanka Belgium waxaan kaga qayb galay 2 shir oo aad u muhiim ahaa oo midna lagaga hadlayay peace, security and governance of Africa oo ka soo qayb galay gudoomiyaha African Unionka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Belgium ahna wasiirka arrimaha dibadda. kulankaas oo ahaa high level meeting ama shir heerkiisu sarreeyo waxaa noo ahaa fursad qaaliya inaanu kaga hadalno arrimaha duufaanada Somaliland ku dhuftay iyo aqoonsiga Somaliland iyo nabadgelyadeeda iyo horumarkeeda. waxaa kaloo isna dhinac socday shir weyn oo lagu qabtay baarlamaanka Yurub dhexdiisa oo Marwo Faadima Saciid ka qayb gashay oo laga hadlayay arrinta ictiraafka kaliya Somaliland iyo mashkiladaha loo ictiraafi waayay Somaliland. waddanka Sweden isna waxaan ka hadlay martiqaad baarlamaanka Sweden. waxaan kaloo la kulannay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Sweden. iyagana waxaan kala hadlay arrimaha Somaliland ka taagan ay ka mid yihiin duufaanku, horumarka, nabadgelyada iyo mucaawimada la siiyo Somaliland iyo arrimaha doorashada iyo dimuqraadiyadda. waddanka Denmark isna waxaan nagu nimi inaanu la kulanno dowladda Denmark. waxaan la kulmayno berrinta wasaaradda arrimaha dibadda. waxaan kaloo la kulannay maanta aan hadal ka jeediyey instituutka daraasaadka caalamiga ee dalka Denmark. waxaan kaloo la kulannay instituutka qaabilsan tababarada iyo kaalmada oo axsaabta siyaasiga. waxaan kala hadalnay arrimaha Somaliland iyo inay gacan ka geystaan horumarinta dimuqraadiyadda Somaliland. arrinta labaad oo nimo waxa weeye inaanu u mahadnaqno laabaha xisbiga dibadda. runtii si ugu libaan rabaa inaan idinku mahadnaqo laanta xisbiga dalka Denmark oo ah laamihii ugu horreeyey ee loo sameeyey dibadda xisbiga waddani. dhalinyaradii samaysay uu isbedbedelaayo madaxweyne cigaal baa soo saaray xilku waa meerta markaa qoladii aasaastay ee kabtan iyo ugu yaryaraayeen waxaa filayaa inay joogaan caawa. markaa xisbigu waa meerta oo dee maalinba nin baa haya. markaa maalinba ninka haya ayaynu insha allah ku daba joogeynaa. waxaa kaloo guud ahaanba siyaasaddu qaatay xisbigu in dib loo dhiso oo dib loo gegejiyo. hawlo badan baynu soo marray, dagaal badan baynu soo galnay, dad badani waa daalayaan. markaa laamaha dibadda iyo gudahaba
dawlad socotaan gudaha oo ka bilaabay geejinta marka waxa loo baahan yahay laamaha dibadda laftigoodu in dib la isugu noqdo oo guddiyada dib loo eego oo la qiimeeyo oo si wada jira loo dhiso xisbiga laantiisa halkan rag iyo dumar iyo dhalinyarada waxaan kaloo ka mid ahaa arrimahan u nimi inaan la kulanno si guud jaaliyadaha Somaliland dhammaantood wadamada aan booqanayno dardaaran waxaan u sidnaa jaaliyadaha waxa weeye inaynu muujino midnimo markaynu halkan joogno dhammaantiin oo Somaliland aynu ka wada shaqeyno arrimaheeda waxa kale oo aan jeclahay inaan dhexgeliyo hadalkayga inaan shacbiga mar labaad u hambaleeyo maalintii qaranka 18 May iyo 27 May oo taariikh weyn ku leh Somaliland ana maalintii ugu horeysay ciidamadii sanadka soo galay ee hogaaminayay Ahmed Bare magaalada Bodo wixii naga dhintay halganka la naxariisto waxaan doonayaa qodob kale inaan ka hadlo oo ku saabsan waxaan la soconay in khasaare weyn dhacay oo duufaan ku dhuftay qaybo badan oo dal ka mid ah oo ay ugu dhibaato badnayd gobolka Awdal iyo Saaxil iyo xeebaha bari ee Somaliland ku kala badnaadaan marka waxaan soo jeedinaynaa gaar ahaan jaaliyadda oo dhan gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani inay ka qayb qaataan kaalmada ama tabaruca loogu talagelayo dadka walaalaheena ee khasaaruhu gaadhay rabadaan oo ku jirnaayo sadaqad bay noqon doontaa insha Allah waxaa ka warqabtaan walaalayaal dhammaantiin in xisbiga wadani uu ogolaaday natiijadii doorashadii madaxtooyada ee November dhacday isagoo eegaya dadka qaranka iyo midnimada ummadda iyo shacbiga maantana madaxweynuhu ahaa Muuse marka marar badan dadka qaar baa shaki geliya laakiin waa ku celinayaa anugu madaxweyne ma sheegan madaxweynaha ku qabsan madaxweynenimada laakiin xilkii qaranku isagoo maanta saameyn cadaaladda isagaa laga rabaa dadka inuu ka saaro midnimo la'aanta oo midnimo ku beero isagaa laga rabaa xaraftii doorashada inuu dadka ka saaro isagaa laga rabaa shacbiga inuu mideeyo isagaa laga rabaa cadaalad inuu ku maamulana isagaa laga rabaa laakiin waxaa ka warqabtaa in xisbigu go'aan gaadhay go'aankaasina uu yahay inuu kalsoonidii kala noqday guddiga doorashooyinka qaranka xisbigu wuxuu ku jiray baadhis dheer oo ku saabsan ama baadhitaan wixii dhacay madmadow wixii isweydaarin dhacay wixii musuqmaasuq dhacay wixii boob dhacay dhowaana insha Allah baadhistiisa uu soo gabagabeynaya waxaan u soo bandhigayaa shacbiga Somaliland iyo beesha caalamka inta waxaan filayaa natiijadaasi ama baadhitaan ka soo baxda inay noqon doonto arrin qancisa dhammaan shacbiga Somaliland iyo dunidaba kulmiye wuxuu xariif ku yahay isku kabkabka hadalka iyo googooynta hadallada hase yeeshee waxaa lagu jiraa waa bil Ramadaan oo waxaan kula talin lahaa inaanu ku mashquulin كبايع المشترين تعالى الله يخلي الله كبير
waxaan kaloo idiin sheegayaa in xisbigu uu doonayo wada shaqayntiisa in la xoojiyo laamaha dibadda iyo xarunta insha allah xaruntii way shaqaynaysaa laga bilaabo hadda maalin kasta 8 subaxnimo ilaa 2 iyo barka duhurnimo waxaan doonaynaa inay isku xidhmaan laamaha iyo xarunta waxaan xoojin doonaa xafiiskii hore u jiray ee ahaa qurba joogga haddii alla ka dhigo waxaan doonaynaa laamuhu inay ku dhisnaadaan membership haddii alla ka dhigo oo qofka memberka bixiya uu noqdo qof transparent ah oo wuxuu bixiyay laga arko xarunta insha allah waxaan samayn doonaa nidaam xisaabeed oo transparent ah oo laamaha iyo ay ku wada shaqeeyaan laakiin waxaa laga rabaa laantuna inay diiwaangeliso xubnaheeda in la ogaado oo qof kasta rasiid qaato wuxuu bixiyey ama dee accountka laga arko inuu bixiyey waxaa la doonayaa laantu qof kastoo xubin ah inay siiso membership card oo ay kala socnaadaan yaa xubina yaan xubin ahayn xubnuhu ugu xaq u yeelanaya markaa inay wax doortaan ama la doorto haddii alla ka dhigo dhammaan shacbiga Somaliland iyo taageerayaasha xisbigaba sida marar badan ku sheegay waxaan ugu baaqayaa inay isgarab taagaan markasta ciidamada qaranka oo gudanaya waajibkooda inay dalkooda daafacaan hase yeeshee waxaan rumaysanahay dhammaanteen inaan dagaal ciidani ugu jirin qofna dagaal dani uguma jirto Somaliland uguma jirto Puntland iyo Soomaaliyana uguma jirto waxaa loo baahan yahay arrintaa jirta halkaa ka jirta in la nabadeeyo oo la taageero xabad joojinta beesha caalamka soo jeedisay arrintaana laga wada hadlo Somaliland xaq bay u leedahay inay istifaacdo laakiin mar walba waxaa Somaliland ay caddaysay hadda inay nabadda u gasho marka nabadaynu horeysiinaynaa mar kasta in halkaa nabad laga dhaliyo oo la joojiyo dhiigga halkaa ku daadanaya iyadoo weliba tahay bir Ramadaan waxaan kusoo gudaanayaa baaqaas waxa weeye waxa la xiray oo ka warqabtaan suldaan cune waxa la yidhi waxbuu caayay haddii cid lagu xidhayo in cali guri la xidhaa way ahayd saas maaha waxaan qabaa xadhigaasi inuu baadil yahay intaan la soo xidhin cali guri haddii cid cay lagu xidhayo waa in cali guri loogu horeysiiyaa haddii kale baadil buu noqonaya xadhiga suldaanku waxaanu ku baaqaynaa in xorriyadiisa degdeg dhaqso loogu soo celiyo asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh